Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka Ogaalka Dunida oo aad alaaba ka dhagaysataan channelka Wanaag Media. Barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa Donald Trump oo lagu eedeeyay inuu ilaaway heesta calanka ee dalkiisa Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa lagu soo dhoweeyay sacab, iyadoo dadka qaarna ay ku qayliyeen intii uu garoonka ku sugnaa ee la qaadaya heesta calanka. Laakiin markii heesta la bilaabay, dadka isticmaala baraha bulshada waxay ku leexdeen dhaqankiisa ku wajahan astaanta. Taageerayaasha Trump waxay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay arkaan madaxweynaha oo gacantiisa saaran tahay wadnihiisa, balse kuwa mucaaradka ku ah waxay sheegeen in erayada uu hilmaamay. Waxaa cad in uusan dhammaan wada qaadin erayada heesta calanka. Muuqaalka wuxuu ku tusayaa Mr. Trump oo aamusaya bilowga. Wuxuu u muuqday qof qaadaya erayada qaar halka mararka qaarna uu aamusayo. Sadarrada qaar waxaa loo dhahaa si kor ah. Madaxweynaha wuxuu si muuqata u kala qaaday afka marka la gaaray xiddigaha dhalaalaya, wuxuuna farxad iyo dhoolla-caddeyn ku dhameeyay dhulka xorta ah iyo hoyga geesiyaasha. Sadarrada ma uusan qaadin haddii uu ilaaway erayada iyo haddii kale waa dood furan. Horey waxaa loo arkay isagoo qaadaya, wuxuuna taageero ku helay sida uu u xushmeeyay calanka, oo dadka qaar waxay ku ammaaneen in uu gacanta saaray wadnihiisa.